walaalihii waxaanu nahay dhammaanteen dad rajo ku nool ah oo subax walba ama haween walba ku seexda walaalkiina marna garabkiina marna saaxiibkiina bir uun waa la soo deyn doonaa سلطان محمود جمعالي إلى البلشاوي hooyadiis waxaan idinka codsanayaa dawladda barakeyne ee Soomaaliland waxaan ka codsanayaa in cunugaas ii soo deeyo aniga garabkayga u ahay waxaana ku dhalay burburka waqtiga burburka waana yaraankaygi waxaan ka codsanayaa inaad wiilkaas Bilal Bulshaawi la yiraahdo magaciisa caadigaana ah Cabduqaadir Cali Maxamuud idinka codsanayaa mudana madaxweyne waxaan ka codsanayaa adigoo ah musabiixi aan ka codsanayaa insha Allah taala inaad ii soo deyso wiilkaas waana agoon cid kale oo maanta adaa aabihi jooga waxaan ka rabaa inaad ii soo deyso agoonnimaana ku soo korsho ka codsanayaa inaad mudane aad ii soo deyso musabiixi madaxweynaha musabiixi adaan ka codsaday waa ka codsada codsiga iga tahay waa ku bariyaa kunya kowjoor waxaan ka rabaa cunugaas inaad ii soo deyso amaalmarintaadana lama gaari karo marka waxaan rabaa sidan jecelnahay oo ummadda aad cunugaaga iyo la jeceshahay inaad iila jeclaato insha Allah taala waxaana ka codsaa in si degdega aad igu soo deyso waxaan ka rabaa cunugaas xurriyadiisa inaad dib igu soo celiso. السلام عليكم مجيء واسمان علي محمود وبلا بلشاوي ولاجيس waxaa ka codsanayaa madaxweynaha musabiixi inuu noo soo daayo walaalkay Bilaal inuu dib noo soo daayo xurriyadiisa mar walba murug iyo fikir iyo problem ku jirna hooyadana waanima noo soo korisay ilaa hadda hooyadeen way iska xanuunsan tahay murugtiisa la jiiftaa anagana sidoo kale walaalkeen waa yaraankeena mana ka marano bariis waa ku baryeena waa codsi waa Bilaal walaalihiisa waxaan ku leenahay madaxweyne mudane waa ku baryeena noo soo daa xurriyadiisa dib noo soo sii waana ku baryeena codsiga naga tahay haddaanaan familka Bilaal Bulshaawi codsiga naga tahay bariis waa ku baryeena ma awoodno qiiradeena maanta waxaa ku saabsanaa weliga kaamir ma soo hor istaagin maxaa ugu qasbay walaalkayga oo iga maqan maanta xurriyadiisa ma haysto telefoona kala hadalna xitaa walba xitaa ma haysano mana la hadli karo xaaladdu ku sugan yahay ma sheegi karno waa ku baryeena madaxweyne meesha waxa uu soo fadhiisay inaan codsi u dalbano ama codsi aan u dirsano jamhuuriyadda Somaliland khaasatan madaxweynaha waxaa maanta meesha u soo fadhiisanay aan la murugeysanahay aan la tiiraysanahay anigoonan awood u lahayn inaan dib u soo celino awoodda saaxiibkeen marna walaalkeen marna garabkeen oo naga maqan balse aan maanta awood u leenahay inaan codsi u dirsano dawladda barakeysan ee Somaliland maanta waxa meeshan u soo fadhiisanay walaalaheen Somaliland oo walaalkeena waxaa lahaa xurriyadiisa iyaga maanta gacantooda ku jirto waxaan idinka codsanaynaa kun iyo kow jeer inaad maanta xurriyadda walaalkeena aad dib inagu soo celisaan waxaanu nahay dhammaanteen dad rajo ku nool ah oo subax walba ama haween walba ku seexda walaalkiina marna garabkiina marna saaxiibkiina bir uun waa la soo deyn doonaa maanta rajadeena waxaa rumayn kara ilaahay ka sukow madaxweynaha dalka Somaliland musabiixi waxaan ka codsanaynaa hadduu video ku soo gaaro waxaan nahay dadkooda ka maqan yahay aanan maanta awood u lahayn inay soo deystaan xag awood ama xag maal aanan haysan laakiinse aan haysano cod aan ku soo gudbisan karno codsigeena iyo rabitaankeena maantana waxaa codsanaynaa anagoo ah Bilaal Bulshaawi familkiisa iyo saaxiibadiisa in xurriyadiisa dibna lagu soo celiyo anigoo ah Armaan Maxamed Cabdiraxmaan ahna Bilaal Bulshaawi saaxiibkiisa aan ugu baratay mataajiro iyo qorsol ayaantana awgeyseen wax kale maahan waxaa ayaanta ugu maqannahay qadka ama social media
saataa la socotaan walaalkeena bulshada waxaan yahay waxaana halkan maanta codsi ugu tirsanayaa aba ugu dhiibanaynaa madaxweynaha Muuse Biixi dowladda barakeysan ee Somaliland ee walaalaheena ah ee nagu luqada ah ee nagu diinta ah waxaan ka codsanayaa in saaxiibkeena marna walaalkeena aad xiriirkiisa dib u siisaan meeshaan waxaan ku codsanayaa madaxweynaha